السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومدى الصومالية دردن والسلام يا وحربا إنا كهالو هذا الكي شريكة صويري مالنتي عيد درهاد مدحوينها جبلان أحمد إسلام هذا الكاسو أها وفرينو قدري مدحوين فرماجو لها ورهدا دستور كتكتو يا نندارودي حوق مقدشك قمتها نكرو وهوية كما حكومي كرو وحا هوية لغو حكومي كرا oo Soomaali lagu xukumi kara oo qofka mas'uulka ugu hoggaamsami karta waa dastuur weey marka dastuurka hadii la laalo ninka kama weyna hadalkaasi dood badan buu dhaliyay arintaas arba marka inaan ka hadlo iyo doorashada Jubbaland oo hadda waxa weeye foodana ku soo haysta oo aad umada ugu dhigtaagayso dawladda federaalkuna ay rabto inay boobto madaxweyne farmaajo rabo inuu boobo arintaas arba inaan ka hadlo waa ninkii shiina culeeyaha musharax 20 ku reebay janaalka ku leeyahay YouTube iyo barteeda Facebook baa igala socotaan waxa si xushmad leh ka codsanaya videoga in la share gareeyo la sii qaybiyo janaalkayga in subscribe la saaro ee YouTube shiina culay iyo like iyo commentiga in la soo badiyo horta Soomaalida waxaan malaynayaa munaafiqiinta ku badan qofku qabiil haduu soo hadal qaado waxa lagu shaabadeynayaa qabyaalad macnaheedu maaha aanu hadda halka reer hebel ka carabaabo oo ka magac dhabo inaan nin qabiil ka hadlay ahay ama nin qabiili ahay ama nin reer gaara duulaa ku ah reer gaarana u daneynaya taa macnaheedu maaha waxa la yiri geedka kalluunka la yiraahdo hilibkiisa ma cuno foodkiisana waa jecel hawa caba isma qaban karto Soomaali inay qabiil ku dhaqanto oo wax ku qaybsato oo axdiga iyo dastuurka u yaala ugu maxaa ku raadayay ugu qoran yahay oo madaxda sare ay qabiil meesha ku fadhido 4.5 ku fadhido haddana la yiraahdo lagama hadli karo isma qaban karto wax is qaban kara oo meel wada gali kara ma aha waa laga wada hadlaya waxa weeye waa wixii lagu dhaqmayay waa la rogayaa hadii wadanku xisbi ahaan lahaa oo dimuqraadi iyo jamhuuri iyo maxaa ku raad liberal iyo wax noocaas lahaa kuwaas carabka lagu adkay lahaa laakiin hadii qabiil noqotay oo daarood inta si hawiye inta si dirintan u dhiib raxweyn halka gay 0.5 halka waxa hadii la leeyahay qabiiladu waa laga hadlaya farmaajo ma kursi hawiye ku fadhiya ma midir buu ku fadhiya madaxweynaha ahaado yuu ku fadhiya wuxuu ku fadhiya kursi daarood buu ku fadhiya maalinta xaajadu ku adkaato xildhibaanada daarood labada habeenimo u yeertaa waa beentay maaha oo igu walahay labada habeenimo u yeertaa maalinta xaaladdu ku soo ciirto haye markaasuu kala hadlaa oo dhaawari badbaadiya oo mooshinka halka laga balgalo Soomaali waa istaqaana way sagtahay marka inuu dhibsado hadalkii Axmed Islaan inuu dhibsado oo yiraahdo Axmed qabiil buu wadaa dan qaran ma wado farmaajo waxaan leenahay iyo dadka inta aaminsanba dad habeen jira miidin Axmed madaxweynuhu wuxuu yiri hadalkiisu wuxuu ahaa farmaajo runta u sheegay runtu ka hadlay Axmed in lagu bogaadiye ahay laakiin in la afjabsado ma mudna Axmed runtu ka hadlay farmaajo waxaan leenahay anagu waa balbalaarinayna intii Axmed Islaan yiri baan balbalaarinayna farmaajo hadda Muqdisho cidxoo ku joogayso ina adeerka Allah u naxariisto siyaad baraa ku joogi lahaa oo ka awood badna oo ka dawlad adka oo taangiye watay adu hal taangi ma haysto kan amisooma joogan adaa lagu ilaaliya laakiin hawiye macnaa kuma leey kartid marka meel kale adoo daarood kale aan aadin Soomaali kale aan aadin siyaad bare adeerka meesha awood ku joogi lahaa haye daarood Muqdisho waa lagu diray duhur cad ba saa looga horgufay oo banaanka loo tuuray oo Kismaayo ku noqo Boosaaso ku noqo halka ay ka dhacday Soomaali waa kala adkaaday waa dagaal isku yaa dhacay reer walba waxa ku iri waa nasan waayay waa ku nagaan waayay meeshii jilibkiisu deganaa meel aan ahayn marka taas tusaalaha kugu filaato intaas ba tusaalaha kugu filaato waxa weeye ma dafiri kartid maanta hawiye waxa weeye dushooda Muqdisho lagu jooga dadkaas waa lagu doortay shalay markii aan dastuurku jirin Muqdisho yaa ku heliyay hawiye reer kale ma ku heliyay qabqable daarooda Muqdisho ma joogay xaafad kamida ma u xirnay waa maya mana joogin uma xirnay Kismaayo ugu shaqeysay meel joogan xaqana maxaa ku yiraahdaa gaalkacay ugu shaqeysay waxa ay Muqdisho u qaybsanaa hawiye ahayd maxaa daarood Muqdisho ku celiyay daarood waxa Muqdisho ku celiyay dastuurka ku celiyay dastuurkii hadaa laabto oo tiraado xoog baan dadku ku haysanaya meeshii adeerkaas yaad maray baa maraysa Allah u naxariisto odayga inaan soo hadal qaado ma jecli waa taageersanay siyaad bare inkastoo denin ahaa maxaa ku yiraahdaa gacan adag oo military ah haddana waxa weeye xaasha Allah u naxariisto waa dhintay
siyaad barre legacy fiicano aniga xaggayga ka tagay laakiin farmaajo bulush xaarle u shita bulush xaarle isaga u shita siyaad iska yeel isu leeyahay oo arkaa jira doon adeerkaasu dadka u xukumayo u xukun oo sidoo dadka maxaa ku dhahay madaxa uga garaacayo uga garaac buu wuxuu ninka odayga oo dhintay waxa weeye dad Soomaaliyeed wax ka tirsanaya anagu waxa kama tirsanayno buu xasuusinaya markaas qabriga xilliga maxaa ku dhahay habaarkiga daba geynaya marka farmaajo waxaan leenahay farmaajo hawiye ixtiraam dekedoodii baa la nuugaysa iyadii baa mushaar ka qaadanaysa iyadii baa ku maamulaysa iyadii baa u tafaariqaynaysa wadanku 4 dekedood buu lahaa 2 dekedood hawiye daarood bay gacanta u galeen dekadii isaaq bay gacanta u gashay dekadina hawiye gacanta u gashay labadii daarood Soomaali kama dhaxayso daarood Kismaayo iyo Boosaaso iyaga gaar u jaqaya isaaq warkooda daatoodii berbera carab bay ula galeen tii hawiye dadku ka lushaa marka hawiye waxaan ammaan iyo bogaadin ahayn maxaa ku rahay ma mudna waa reerka kaliya oo maanta Soomaali ka dhiman weyday oo saa isugu keenaysa bal adigu 4.5 baa farmaajo ku fadhida kursi daarood leeyahay fadhida saami qaybsiga marka laga hadlo daarood kursigiisii baa fadhida dekadii Boosaasana inaa soo cashuurto iska daaya inaa tagto oo soo boqoto laguma ogola tii Kismaayo iska dhaaf adiga ee wasiir xagga ka socda ma tii karo hawiyana waxa rabtaa inta iyaga ku cashuurto lacagtooda inaa hub inta ugu soo iibsato inaa kullaysa aragtaa Soomaalida hadaa runta loo tagin oo runta la taaban adeer waxa la yiri markii ceelal iyo heshiisa xoolo biyacbaan ya marka runta in la taabtaa loo baahan farmaajo hawiye waxa xukumi karaysa waxaan ku yiri waxay ku hogaansami karayaan waxay maxaa ku dhahay kacaan ku noqon karayaan marka Boosaaso iyo Kismaayo soo xukunto adoo aan Boosaaso iyo Kismaayo cashuuri karin hawiye ina cashuurta xaq daro weeye waxa weeye waa hawiye inuu wanaagsan yahay bay muujinaysaa inay dad Soomaalinimo ogol yihiin bay muujinaysaa laakiin waxa ku xukumaysaa waxa weeye waa Soomaalinimo iyo dastuur iyo dawladnimo ku xukumaysaa qabiil kuma xukumi kartid hawiye qabiil kuma xukumi kartid hatta xaalad qabiil ka dhigto ya de adeer waa iska tagaysaa Kismaayo ama ogaadeen inaad ka dhigto ku ogolaadeen ama Boosaaso maxaa ku dhahay ma jeerteen inaad la dhuqdo ku ogolaadeen laakiin Muqdisho boos kaagama banaana marka waxaan ku leenahay dastuurka u soo noqon ku leenahay Soomaalinimada u soo noqon ku leenahay anu maalintii lagu dooranayay umada Soomaaliyeed maxaa Soomaali baa wahay maanta maxaad Marixaan baa maraysaa maxaad Marixaan aad baa wax ma ina maxaad Marixaan mariso jeedii iyo umada Soomaaliyeed Maxamed Soomaali magacii umada Soomaaliyeed dusha ku saartay yaa ina ka tagto dad badan hadda ay u soo canaan doona farmaajo maxaa saa u tirfa farmaajo nabi maaha rasuul maaha awliya maaha inan yar oo waxa weeye shalay la doortay weeye muwaadin aniga ila mid ahaa buu muxuu yahay farmaajo muxuu yahay madaxweynuhu noqday madaxweynuhu hadduu dadka wuxuu hagaaj muxuu qabtay isaga xas shaqada farqa u dhaxeeya ii sheeg farqaas u dhaxeeya dhaha ii sheeg wada ma dhisay airport ma dhisay muxuu qabtay inta uu maanta hawaan soo wareejiyay halkan waxa kala qabtay waa intii xas shaqo tagay weeye hawada xasana ka tagay waa tii maxaa ku dhacan karo lagu heshiinay wax alla iyo wuxuu qabtay aan ka ahayn qabyaaladii inuu naaxiyay oo ummadii Soomaaliyeed madax isu galiyay waxaan ka ahayn oo qabtay maaha haye dan qaran ma wado mid qoys buu wada Jubbaland waxa uu ku haystaa waa nin Marixaan ah dhikal ka saarto haday ku socon weydana mid ogaadeen oo magac saar ah ya oo maxaa ku dhahay iskaga adeegato halka geyso bay ka tahay wata galmudug baa ka shaqeeyla galmudug maalintii la doortay hadal baan idhi waxaan idhi war hawiye dareen kula joog baan idhi war waxaan ku idhi hawiye dareen kula joog waxaan kaloo ku idhi war daarood hana u dhiman hana ka dhiman baan ku idhi hana u dhiman hana ka dhiman waxaan ku idhi war tolka Marixaan waxaan idhi Marixaan muxuu ahaa hana ka durkin hana dugsan baan idhi Marixaan ka durkin hana dugsan Marixaan waa dugsatay ina kamana waa dugsatay marka farmaajo intaasaan leeyahay madaxweynuhu meel xillu ku socdaa umada Soomaaliyeedna meel xillu ku hogaaminaya annaga saasa ninkii nagu jeclaanaha iyo ninkii nagu nabclaanaha waa fikirkaygu weey ninkii si kale ula muuqato nabadiya horteeda nabad jirtay farmaajo inta in la eg oo nabad u keenay ma jirto wax alla iyo wuxuu keenay oo soo kordhiyay oo maanta lagu ammaano aan ka ahayn dadkii inay kala dhinteen ummadii Soomaaliyeed oo qabiil ya maanta marayso ma jirto anu ma reer isaaq reer kale yiraahdo Somaliland farmaajo markay ka cawdaan waa u garaabi jiray waa la yaabi jiray haddaan u garaaba birkay
جبلان بو أصحابه قال لا أو وقاعدين بو كأورنيا أحمد مدوبة سنك وحسا وقاعدين بو كأورنيا هي بنتلان بو لبع وكتبيا وحي العقل هي كبحي دور شديد إنه كشف تدمعي سكست كيالي مجرتينو ديبا مجرتينو يجي بالصباعة توك محلو مجرتينو يجي بالصباعة قري فرال اسكار قبتين وحي العقل هي دور شاسو قلي دولة دي مقطع دولة دا وعلى يرور نفور بوكي على بالي دور شدي بنتلان عكي لو بخيي مدحتويده ka go'an tahay 5 bilood mushahar lama qaadan meelay mushaharkii lacagteedii miisaaniyadii waa soo xirotay ninka la yiraahdo bayle meel kasta wuxuu la taagan yahay sanadka dakhliga waa kordhay kharashkii marka maxaa bixiyay hadii dakhliga kordhay kharashkii waxa loo bixi waayay meeshii mushahar iyo adeeg looga bixin lahaa waxa la geeyay doorashadii Puntland baa laga qayb galay taasna waa lagu guul daraystay de tugtug ma hado mareexaan nima jeerteen nin mareexaana gaadimayo way siqaanin marka haddana Jubbaland buu ula baco kutubaya ninkii xaafaha buu silsilaya odayga ka weyn adeerkii oo ixtiraamay oo bahalka yihiin waxa rabaa marka doorashadii Jubbaland baa soo foodle reer Jubbaland waxa idin leeyahay war ugaadeno reer Jubbaland waxa weeye ninka la yiraahdo farmaajo duulaan buu ku yahay duulaan wuxuu ku yahay reer Jubbaland oo dhan maaha ugaadeen buu duulaan ku yahay ugaadeen bank si gaar ula hadlaya meesha ayaga majority ka hadan xukuuyo gacanta ugu jira war ugaadeno intii ma jeerteen garta intaas aan ugu leeyahay ma jeerteen intuu garta war kursigiina ilaashada war dawladnimadiina ilaashada waxaan ku iriyaan maalin dhowto waxa la ii sheegay farmaajo waxa laga sheegay odayaal mareexaana u tagay baa la yiri waxa la yiri madaxweynaha Jubbaland baa rabnaa inaan noqono nugu taageer musharax aan wadana wuxuu yiri in ku taageermayo Soomaali baa ila yaabaysa caalamka ila yaabaya nin mareexaana barta ka keenay lahaa oo loo abtirinayo waxa keenaya mid marje maxaa ku lahaa ugaadeen magaca ka ah laakiin maqaarka mareexaanka oo in ku adeegnaa keenaya marka waxaan rabaa inaan ugaadeen ama reer Jubbaland u sheego war ninka la soo wado waxa kan la sheegay hebel ba nimana kan Axmed Madoobe maadeertii oo shacabka u garaacaya war waxa lacag baa la soo siiyay ininka la rabaa in ku kala furfuro maamulkiina la rabaa in lagu dumiyo waxa weeye Axmed Madoobe ninka doortaan idin leenahay doorta Axmed ha ka abaal ka dhicinina Somaliland Maxamed Ibrahim Cigaal ba dhidibada u aasay lagama daba hadal ilaa uu ka dhintay 10 sano meesha fadhiyay waxba uu hagaajiyay maanta waa u aayeen nabadda iyo horumarka iyo dawladnimadaasi haystaan Puntland Cabdullaahi Yuusuf baa dhidibada u taagay ilaa uu ka dalacay oo federaal ka aaday waxa weeye kama daba hadlin reer Puntland haye mar baa la dabcay laga daba hadlo dagaal sukaya ka dhacay Jubbaland Axmed wuxuu ka bilaabay bankood reerku markay geediga yihiin oo meel degaan haday meeshu tahay meel ban ah waa la oodaa markaas oo dal bilaabaa qahar badan iyo dib badan bay leedahay waa banaan bankood baa dhaha markuu reerku dego guri hore loo deganaana waa guri la degay weeye Axmed meesha wuxuu ka bilaabay bankood buu ka bilaabay Jubbaland kama horeyn magac ugama horeyn dawladnimo ugama horeyn isaga shabaab buu ka xoreeyay nabadgelyo ku soo celiyay maamul buu u dhisay hareeraha la haystay dawladda federaalka xilliga Xasan Sheekh waa ka dhaqaaq lahayd waa la socotaan wuu dhisay doorashadiisii hore xataa dawladdu muran bay gelisay waa u meel martay nabadgelyadaas u keenay dawladnimada amaanta ku faanaysaan Puntland oo 20 iyo dhowr sano jirta iyo maxaa ku dhahdaa Jubbaland oo uu shalay ninkaasi dhidibada u taagay maanta waxa weeye saas isu barbar ordayaan sida 5 sano hadaa ugu dartaan Puntland ay sheegaysaan carabuhu in dhaafinaya Dubai uu inala tartansiinaya saasaan leenahay ha ku caasinina waxaan ku iri hadaa ikhyaarkiina wax ku dooranaysaan ya oo doorasho cadaali ah ahaan lahayd wax dhanbi ahaan lahayd musharaxiin maxaa ku dhahaa iskood u tabayaan ma jiraan waa dad farmaajo lacag soo wada siiyay lacagta ay soo shaqaysteen maaha waa lacag qadar iyo meel daran ka timi Axmed Madoobe maanta hadii farmaajo uu ku haysto dan Soomaaliyeed waa u garaabi lahayn dan qabiil buu ku daba joogaa ninka dan shakhsiyadeed buu ku daba joogaa wuxuu rabaa inuu madaxda maamul goboleedyada oo dhan sida intuu uga takhaluso inuu markaas arkijira doon weeye wadanka inuu jamhuuriyaddii dimuqraadiga Soomaaliya inuu ku celiyo rabaa oo dadka halka doorashadii beenta ahayd arhay oday dooran xaa u tiri doorta saasuu rabaa meel kasta intuu sanduuq beena dhigo inuu ku shubto doonaya oo cid ka daba hadlin oo federaalka saa u baabiyo saasuu rabaa oo dalka uu ka dhigo maqaaxi uu isagu leeyahay oo ku amar ku taagleeyo marka doorashada Jubbaland waxa la kala dooranayaa
ونظامك فدرالك سومالي نمو iyo dimuqraadiyad oo Axmed Madoobe u taagan yahay baa la dooranaya kala damaynta sharciga ixtiraamka wuxuu lagu heshiiyay nidaamka federaalka iyo farmaajo qadar qabiil ilaa dictatoriyad maxaa ku raacay xumaan oo dhan labadaas aan kala dooranaya ama ninkii Axmed Madoobe doorta waa nin u hiiliyay Soomaali ninka u hiiliyay doorashada Jubbaland baa Soomaali wallahi magaceeda u dabaynaysa doorashadaas taagan tahay haddii doorashada farmaajo iyo qadar ku adkaadaan Soomaali waa ku deysi meel dalo baas ba ku dhacday meesha loo socdana waxaan ku iri waa Soomaali intii 20 sano sida la isugu kabayay ilaa maalinta carta la fariistay buu farmaajo saa u kala furfuraya Axmed Madoobe waa kala baydka weey maanta hadduu Axmed Madoobe saa uga takhaluso khalaas Soomaali jilbaha Muqdisho xabad ka bilaabanaysa sababtoo ah wuxuu doonayo Axmed Madoobe kula dagaalamayo waa dalka aan dictatoriyad galiyo dimuqraadiyadda aan laabo wax kasta aan baabiyo weey ma laga yeelaya dastuurka hadduu tuuro laga yeeli maayo Axmed Madoobe inta uu shalay sheegay bay tagaysaa oo ah war nin daarooda hawiye iyo Muqdisho xoog kuma xukumi karo hawiye waa kacaya hadduu kacona halkii adeerkiisa maray Allah u naxariistay daarood meeshii la mariyay buu maray meel ka dambaysa maray haye maxaa kii ka xog weynaa baa la arkay kii 21 sano waddanka xukumayay doorasho aan ku qabsan inqilaab ku qabsaday ciidan xoog dal haystay adduunyada dhan ka yaabanay cudud ahaa baa qabiil markay tagtay duhur cad isagoo wixii daarood la socday oo dhan saa loo horgufay oo magaalada laga saaray isagoo doorasho ku yimi 3 sano kale 2 sano hadda meesha jooga sanad iyo baru harsan tahay mandatekiisa 4 sano yahay dib maxaa ku lahaa ciidan aan haysan amiso meesha ku ilaaliso wadankii qabyaaladii xoogga la egtahay see u joogi karaa markaa farmaajo see u joogi karaa daarood midaysan aan haysan مريحان وفردية ما أنت هتروح تدارون من السنة يسلا يا وحمبا أورلها سياد برشلي مركي لها رقعداي سور رقع علي وأفقو يلقوا جبيني دكي وذي مجرتاني وقاعدين بيوبدناي نايه ما وضعتها لبدي ما أنت فرماج عن الله دار تهوينا حو كويسته لبدي ما وضعتها ما وضعتي لبدي دتك أيها كوش شيء عد الله يعيدوا نكاس دافيو عد الله يعيدوا دافيو الساقة ديتها هبرجد هديتها هبرجد والقف وحبوب حيرية أنا هذا هدي سؤال مدحوني يدور الله دتك إيرها يجي هيان وديجان كوداجان وكعر لها وحسدي لها وريانها كائر كائما السبو متكفوجا يوم اللي درسها مد الهركود محاكور على صاحب أهاين يوم اللي عدو أهاين مد دجال كدحي يوم مدنا مده هشيسكو أهاين مدنا مرضعفين مد والبا صابته محيطها صابته حوية ونن أجند قبيل وحوي فرديوي نن أجنده سرن أركتدي سرن أي قبيل كوكوانتان قفكم مركو قبيل كفكريو وقف قويس كيسي قريقا يقا انت كجرتا ومباركيا انت ومباركيا قرر مركا كفكرتنا واحد دلكيو دنبا أجدا وانين قبيل أجدا انت ومباركيا وي فرماجو وحالينا هاي مقع في عن كمتغي دلكي وابا بيسي waxa ku fika mushahar baan qabanaya mushahar baan bixinaya 5 bilood mushahar lama qaadan 5 bilood lama qaadan mushahar sheegay gurigiisa shaah laga cadisay madaxtooyadii baa shaah laga cadisay oo wallahi oo billahi oo talaahi baan ku meeday lacagti meeday lacagti jeebku waka in adeerkii la yiri airportka Nairobi baa lagu qabtay isagoo $1,500 waka la yiri $1,500 maxaa ka qariibsanaysaa kuwa dhahay waa been weeye ma qariibsanayo sababtoo mushaharkii xagee maray Soomaali waa istaqaana mushahar inta la bixiyaa labada sano hore weeye labada sano dambe madaxweyne kasto Soomaali soo maray ama federal ha aado ama gobol ha aado labada sano u dambaysa mushaharka waa urursanaa muxuu urursanayaa wuxuu isleeyahay in doorashada ku gal hadaa ku guulaysto alxamdulillah hadii laga guul dareysto inta kala jicsan ka dhigo waa jicsan dibadda ugu wada duulaan maalintaas dalka ugu dambaysa marka farmaajo mushaharaan bixin maalin kaliya al-shabaab kuma duulin maalin kasta maamul goboleed buu haystaa ama siyaasi dawladii ogol oo dastuurkii ogol oo ka soo shaqeeyay oo mabda aysan isku diidanayn laakiin farsamo ay isku diidayeen in Cabdi Shakuur kale buu maalin kasta weeraraya maalin kasta kala ka haystaa maalin kasta bulsho xaara u shita oo marinaya haye nimankii argagixisada ahaa oo nidaamka aan ogolayn oo Soomaalinimada ogolayn oo dastuurka ogolayn oo madaxweynenimadiisa aqoonsanayn oo meesha ku arkaan raba inay isku qarxiyaan isaga iyo Soomaali oo dhan hal maalin weerar kuma qaadin hal tuulo inay isaga ka qabsadaan maahay kama qabsan Xasan Sheekh Maxamuud Cabdullaahi Yuusuf baydhabo tagay dawladda Muqdisho keenay
عبد الشيخ شريف بايمي دولتي ومقدشة كوكومن جوهر يمركو قارسي حسن بايمي إلى محاكو إلى هذا بيدبو دولكي أوردن maamul goboleedyadii oo dhan buu dhisay farmaajo bal wax la taaban karo ii sheeg ani waxa la taaban karo qabtay waxa weeye maamul goboleedyadii dhisnaa inay ka dhaqaaqi laayiin inta baa loo hayaa wax kale oo loo hayo male waxa Soomaaliyada halkaas dhigtay Mareykan waa aragtaan Putin baa la yiri Trump iyadoo aan cadeymo lagu hayn baa lacag soo siiyay isaga doorashada ka saaciday Putin ninka la dhaho Trump 2 sano waa harsanay farmaajo la og yahay cadeynteeda laayo in qadar lacag soo siisay uu dan qadar meesha u joogo oo Sacuudi noogu diray oo Imaaraad noogu diray oo dadkii neefka xoolaha ah Soomaali ay ka noolayd ay u dhoofin jirtay oo ka soo xaraashan jirtay ya dadkii maxaa ku raadayay إلى Soomaali qadar ma ariba anaga naga iibsan jirtay ma ariba naga iibsan jirtay dhaqaalaha Soomaaliyeed laf dhabartiisu waa xoolaa way waa neefka nool way neefka nool Imaaraad iyo Sacuudi baa loo dhoofin jiray si sheer garay kuwa qabyaaladu madax martay qabyal war ka kora qabyaalad ka kora war anu mahawiyana u shaqeynina farmaajana dad xugna laakiin meeshu wax kuwa noo muuqata bari farmaajo aniga wixii hagaajin meeyo qaran Soomaaliyeed wuxuu hagaajin meeyo kuwa qabiilka oo hadda kuwa too isle farmaajo qabiil buu u baalkayna war adeer waxana anfaca madaxweyne reer kurba ha ahaade dalka iyo dadka u shaqeynaya farmaajo Soomaali wuxuu gaarsiiyay neefkii ariga ahaa oo loo dhoofin jiray intuu Sacuudi iyo Imaaraad la diriray ya oo qadar hoosta ka galay neefkii ariga ahaa maanta inuu joogo oo Soomaali maxaa ku raad cid ka iibsatay laayahay qadar oo dhan 100 neef maalintii lagu maqasho 100 neef lagu maqasho maxaanu Sacuudi iyo Imaaraad kula dirirnay aanu la dirirnay dagaal ragam kula dirirnay wakaamaano walba Sacuudiga u sii dhuuhaynaya ku sii socda wuxuu u tagayaa waa Iiraan la dirira iyo Iiraan iyo hadba marna Suuriya la weeraraya waa laga saxaa marna Iiraan baa la weeraraya laga saxaa male dan kale uma tago meel kale uma tago marka farmaajo Soomaaliya waxa idin leeyahay maalin dambe baa fahmi doontaan dadka brainwash lagu sameeyay kacaanimada lagu sameeyay maxaa ku raadayay aqliga laga xaday war waxa la eedo adduunku ay la isla xisaabtamo madaxweynayaashii dalalka horumaray hogaaminayay oo wax walba u qabanayay baa tafta lahaya farmaajo wax alla iyo wuxuu qabtay Soomaali inuu kufiyo maahay bal wuxuu hagaajiyay iisoo sheega aniga bal ila doodo bal waxa soo hagaajiyay iisoo sheega Imaaraad hadda dad badan ku diray waxaan idin sheegayaa oo idin weydiinayaa inaga iyo Kenya maxkamadan iskula jirnay hayb lacagteeda yaa inka bixiyay inaga looyarada lacagtooda yaa bixiyay ma taqaan Imaaraad dawladda Imaaraad ka bixisay ma ogidin waxa inka ma ogidin dawladda Imaaraad ka bixisay Ethiopia tan maalin kasta tagaya ma bixin meel kale ma bixin Ethiopia waagi hore wuxuu ku tagi jiray maxaa ku raadayay iyadoo la og yahay hadda wuxuu marayaa inuu u dhunto dhuumasho inuu ku tago maraya oo markuu Muqdisho ka dago dhaw sharan Ethiopia soo maray halkaas uu maraya sababtoo ah wixii safarkii baa batay safarkii baa batay madaxweynaha Jubbaland waxa weeye ummadda Soomaaliyeed oo dhan Axmed Madoobe tacaayid baa laga faafiyay Axmed Dhuxul kana Maxamed Mayeere weeye yaa laga caybadiya hada waxa weeye dadka ixtiraam weeyo hada ixtiraamka iyo magaca iyo sharafta ay ka mudan yihiin asi weeyo adigana ixtiraam heli maysid Axmed Madoobe dad baa doortay maamul goboleed madaxweyne ka yahay dastuurka ku tirikiisu ku fadhiya maxaa ku raadayay sanduuqa codka lagu riday sanduuq la mid ah loogu riday xoog kuma qabsan isaga ka fiicna oo wax dhisho hagaajiyay marka hada ixtiraam weeyo oo dadka Axmed Madoobe qofka caaya Jubbaland oo dhan buu caayay dad buu sharaftiisa iyo karaamadooda huwayahay waxa oo dhan waxa ka dambeeya farmaajo way isaga la ii caaya dad badan wuxuu u sheegay farmaajo wuxuu yiri Axmed Madoobe Sheekh Shariif Sakiin waa ka adkaaday gaas waa ka adkaaday xaaf maxaa ku lahaa dhulka la dhacay waarig jeebka soo gashaday Axmed Madoobe ay ugu haray buu yiri Axmed Madoobe ay ugu haray waligi ma dagaal buu joogaya war dagaal faa'iido laga ma helo war dagaal badhan yaro ka do alama siisto dalkii Soomaaliyeed dhaqaalihii Soomaaliyeed waqtigii Soomaaliyeed dadaalkii Soomaaliyeed Soomaali iyagiiba saa isugu jibiyay marka reer Jubbaland waxa leeyahay sharaftiina difaac karaamadiina difaac maamulkiina difaac nimanka jawaasiista ah oo lacagta la soo siiyay oo magaca ogaadeen sheeganaya balse ogaadeen aan ahayn maqaar farmaajo uu soo huwiyay ah war iska qabtaa idin leeyahay war niman idin furidoodin yu inay rarin madaxweynaha haysataan Jubbaland idin dhisay
horumarka maanta adduunyadii gaaliya islaamba ay qisan yihiin in gaarsiiyay 7 sano ka hor Axmed Madoobe al-shabaab markuu idinka xoreynayay see ahaydeen magaaladu see u ekay airportkeedu see aha wasaarada ma jireen ciidan ma jiray maya waxa ayaa dhisay Soomaali madax ka nool weey madaxweynaha lama wadaago Axmed Madoobe lama wadaago Axmed Madoobe marka halka u abaal sameyn lahaydeen halka maxaa ku raahdaayay taalo u dhisi lahaydeen halka ilaahay haduu xukmahayo president for life ugu dhufan lahaydeen in maanta hadda Axmed Madoobe idinku shakhsiyadiina ku macaaladi lahaydeen cilmi qabeen hadda aragtidiina ku bedeli lahaydeen wax dhanbe ahaan lahayd laakiin farmaajo iyo maxaa ku raahdaa duulaha fil Soomaaliya kaga soo qaaday waxa leeyahay madaxweynaha ka raacinina farmaajo 2 sano iyo wax la jiro madaxweyne yahay maalin buu idin yimi maalintiina qadu in ka karsooday in ka carraabay muxuu idin qabtay bal ii sheeg waxa idin qabtay hal maalin buu idin yimi qada u karsay kharash buu idin galay way ka noqon Axmed Madoobe waxa way ni soo jabhaday duurku idin galay xabadu idin riday waa idin xoreeyay argixisada buu ka saaray maamul buu idin dhisay ciidan buu idin yagleelay dawladnimo idin gaarsiiyay waka maanta Puntland oo 20 sano ka horeysay buu 7 sano gudaheed idin soo gaarsiiyay maanta Jubbaland iyo Puntland dhag sawirada laga soo qaado marka eegto Jubbaland baa indhaha maxaa ku raad tanaa dawladnimada ku horeysa oranaysa tanaa dhismaha ku horeysa baa oranaysa marka waxaan iri ninka ku fara adayga ragga la tartamaya ragga la yaqaan weeye galaalan kaga hadli doona waxaba ragga la yaqaan weeye ragga la yaqaan nin walba la yaqaan meesha umada kaga jiro waa la yaqaana marka taasaan idinku bogaadinaya taasaan idinku la talinaya umada Soomaaliyeed waxaan leeyahay jidbada la iska daayo jidbada meesha jireen la iska daayo jidbada aniga su'aasha aan idin weydiinayo Axmed Madoobe inuu weydiiya ka xanaaqaysan jawaabteeda isiya nin daarooda Muqdisho maxaa ku leeyahay xoog kuma joogi karo horaa loo tijaabiyo horaa loo arkay waa ku joogi waay muxuu ku joogi karaa nin daarooda ama nin Soomaali kala muxuu ku joogi karaa Muqdisho wuxuu ku joogi karaa dawladnimo ku joogi karaa dastuur buu ku joogi karaa hadii kala tuuro oo farmaajo sida uu yeelay halka lagu tuuro waa kala baxaya Muqdisho magaalada madax Soomaaliyeed weeye laakiin reer baa majority ka hala la deganaad cid kale ha joogto anaga buucadaan ku leenahay taas qiimo ma leh dad baa majority ka garowe waa caasimada Puntland haye ma jeerteen oo dhan baa wax ka ahayn Ciise Maxamuud baa leh waa magaalo reer leeyahay haddana waa magaalo caasimada marka meel Hargeysa Faysal Waraabe 20 sano muxuu xisbiga uga dhici laayay ciidan gale waxay yiraahdaan de magaaladoodii weeye reer walba meel buu leeyahay haddana caasimad weeye Oromo wata Addis Ababa waa caasimada Ethiopia laakiin magaalo Oromo weeye waa kuwii maalintii dhooto abayba maxaa abay ku soo baxay Oromo kacday iyadoo Oromo weligood aan isla xukun bay qabsanaysaa baaliyo dhulka ka baxa Oromo waa kacay magaaladeeda leeyahay ka baxa sidii bay ku kacay sidii bay dalku qabsadeen marka magaalada maalin dhaweyto tusaale kale aan siinaya galmudug markii la yiri cadaado caasimada laga wareejiyo dhuuso mareeb loo wareejiyo salaama waa dawladnimada ka baxay galmudug buu wato halka ka istaagay muudho maxaa ku raahdaayay dhuuso mareeb meel fog caasimadii lama geeyo magaalada habar gidir baa la geeyay muudho war waxa ma jirto reer walba runta markay tagto jifo walba waxay ku far adeegaysaa Muqdisho caasimad Soomaaliyeed oo aan kala lahayn weeye laakiin reer baa u badan reerka hadii la ixtiraam waayo dastuurka iyo wixii lagu heshiiyay hadii lagu dhaqmi waayo magaaladooda iyaga ilaashanaya وإيجا إلى الشنية إيجا قبصنية وحق بقولين شلة هايستين عدي أقول جرين حافظ الجوجين محاكور هاي الطورية كأهاي مركا فرماج وحنلين هاي دلك ميل فوق بقى الكيمي ميل فوق بكيمي أنت راحة كجرتي دتك يكون مستقبل كسيجا وحبرشكوا ويبقى أنا وكمنها أدو مريكن بمرة عروبته على كوكر سنة سي مرة محاكور هكشق سنة سي شلاتيمي مركي ودك على هاجي مركي رجل سنة لقى محاكور لقى قاعدين هبين مهوين وكدو شيء ما أنت كل حتة تبي دورش على كشيء ولا قاعد كذي هبين مهوين وان نقطة تيجي كل حتة تبي والو دوشت ما عليك ديار بسارة تاي بري هدي لقى كذا محاكور على نيويورك بقورن وهالكاس آلسي هبين مهوين مسين waxa cadeynteeda ku filan passport Mareykanka baa iska dhig laga kari laayay war iska dhig passport Mareykanka maxaa u dhigilaada waxa u dhigilaada biraa u socotaa gurigaaga dhabta waka laakiin waxa ku leenahay war gurigaaga dhabta qabri weeye ilaahay ka baq oo dadka u cadaalad samay oo si tan wax ku wado si maaha Soomaali sida tan Soomaali kuma jiri karto ka joog baan ku leenahay ka joog anagu runtaan sheegaynaa cid gaar ah duulaan kuma nihin cid gaar ah u danayn mayno qabyaalad ka hadli mayno waxa ka hadli mayno farmaajo niyo gurigaaga dhabta
markaa dhimatay Soomaaliya hal igu aas oran doontaa hal igu aas qaran la sameeyo sidii madaxda iga horeysay baa oran doontaa marka waxaan leeyahay gurigaaga dhabta aakhiro weeyo waa qabriga weey taa ku xisaabtan baasaboorka kana la ordayso iska tuur marka farmaajo yaan awliyo loo arkin rasuul soo diray yaan loo arkin dadka farmaajo ku haya cidii taageersan anagu ha taageerto ma badiideyno laakiin waa qofka mucaaradka ana waa inuu wax keeno cad qofka taageersan inuu wax cad keeno weey muqdisho waxa soo qabtay aniga halaydo jawhar iyo maxaa ku ilaalay muqdisho la isaga talaabi karo maalintu yimi waa furnay maxaa ku ilaalay baydhabo iyo muqdisho la isaga gudbi karo maalintu yimi waa furnay hay muxuu qabtay marka muxuu qabtay قدر با ودلامي يدسس ماذا ودد لامي قدر بسلاhay meeday war anaga qadar waxeeda ishdaalka ay naga daayay shilinkii dekada nooga soo baxay kii deeqda loo siiyo dalalka dibadda noogu deeqeen kulu waa cuntay waa ka siisay calool weyne waxba kuma dheer marka waxaan leenahay dadka uu ka dhigayo Axmed Madoobe qarannimada Soomaaliyeed hortaagan Axmed Madoobe Soomaali qaran madaxoga ma aha madaxweynena uma aha ra'iisul wasaarena uma aha dan Soomaaliyeedna looma dirin Axmed Madoobe reer Jubbaland baa doortay Jubbaland madaxweyne u yahay iyadii ma hagaajiyay muraayid buu ka dhigay waka dawladnimo ka soo saaray meel fiican buu marinayaa Axmed Madoobe tiisi waa ka soo baxay taadi baa dayacan qofka kabahaaga u dhibanayso kuwiisa la eega Maxamed Soomaaliya meeday adaa madaxweyne Soomaaliya maxaa u qabatay Soomaaliya xagee gaarsiisay Maxamed Abdullaahi baa maxamed mayeera hadlaya meeday me afar yala tagsaca amsay haduu bal waagi hore idaacada kama dhamaan jirin i waraysto nin shaaki sucad yahay buu ahaa hadda shaaki baa dhooqo idaacad madax banaan inuu rabo ma rabo bal umad soo fariisto Xasan Sheikh isagoo gabdho Sacuudiga u dhoofiyay oo Soomaaliya oo dhan xaaqsan tahay oo wallahi isagoo Suudaan jooga yar wariye abu warramay oo laha war maxaa gabdhaha Sacuudiga ugu dirtay maalin walba idaacad uu fadhiyo saasa laga rabaa waa ina istifaac kartid weey waa ina istifaac ma ogol idaacad u baalkisa awal waa laga seexan waay waraysto wuxuu su'aali kama jawaabi karo war ina Cabdi Shkuur maxaa weerartay ma muxuu war xaaf maxaa ku haystaa war galmudug maxaa ku haystaa war Jubbaland doorashadeeda maxaa ku dabacday war maxaa doorashadii maxaa ku dhahday Puntland lacag ugu bixisay war maxaa mushaarka u bixin weeyay war shaab maxaa la dirin weeyay war wadooyinka maxaa u banaan weeyay war wixii aad tiri waa qabanaya safaradii badnaa diyaaradda ka degimayo hadda diyaaradda ma raacimayo wadanka hagaajinaya hadda tiri war dalka maxaa hagaajin weeyay war safaradii badnaa maxay isaga daweeyay wuxuu kaga jawaabay maalin walba madaxdu waa inay dalkeeda joogto madaxda safarada dibadda looma baahna inay galaan diyaaradba kaba degaba maba ka degaba wadankii ina caqdiga waxa laga sheegay habeenka aan dibadda jooga si fiican u seexda inta kale ma seexdo war dalkaaga iyo dadkaaga inaa xal qabto weeye taasay ahayd marka farmaajo taasaa tusaale kugu filan hadduu wax sheegayna warqad buu la soo baxaya xaaf baan kiniin u qoray waa hadal madaxweyne ma yahay xaaf baan kiniin u qorayo xanuun baan ka helayo كنيكي وقالوا كنيكي إلهو كنينا قرتي أنا قادم بلا كنت فاتي كني بأقول كلها كني ما نختار بعدها وريكو ودي حال دي سعفات بعادو فدي بأقول دور الشهور ربع إنه كشبته إنه وحربع معمول قبل ذي ده وحب بعيني إن دبلو دور تور ربطها إنه حوق ودك كويس تور ربع فرماجو أفر سنة لو دورتي لبس سنة يدور بلود بعد جوكتها waxa qabatay male Soomaa waxaan leeyahay war kulay na dhacday waa huba wallahi waana dhacday waxa heli kartay naga guratay waro intaada imaaso intaada adeerow yaan ina xidig iyo ka qaadano Jubbaland baan doorasho ku galaya oran ina horay maxaa ku dhahday jabiyo iyo Puntland kaaga furan ina maxaa ku dhahday kana ilmaadeerta tiino galmudug jooga kaaga furan ina lafta gareenayo ninka aansi war xoogaaga naga dhacday war xoogaaga xijiso wallahi oo billahi oo tallaahi bi 4 sano oo dame ka taan ku iri ka 4 sano oo dame wallahi ka taay Soomaali waa la isqaanaaba marka na dhacday war xoogaaga xijiso ya berika maal magac xumo iyo maal aan iyo isu ka raacin magac meesha kaga tagi misid oo la ana ku huba dadkii ku taageersanaa baan ahaa maanta hadaan ahaan lahaa nin hawiye hadaan ahaan lahaa nin isaaq hadaan ahaan lahaa nin maxaa ku dhahday raxweyna qabiil buu ka hadlayaa baa loo rabaa ina adeerkiisa farmaajo ina adeerkiisa laakiin de qabyaalad ku taageeri mayno xaqan ka hadlena
waxaan leenahay farmaajo sidaa wuxuu dhigayso maaha ilaahay ka baq qabiil Soomaali halkaas uu dhigay dadka dawladdiisa aad bare markay dhacday dadka waxa u liitay maxaa xaaji Ibraahim Cigaal oo beerta xurriyadda Hargeysa ka hadlaya baa hadda koor daawaday oo wuxuu ka hadlayay faqash buu yiri faqash buu ka hadlay ilaahu ku naxariisto wuxuu yiri faqashye ahayd buu yiri faqash inaga waxaan u naqaanaa buu reerka daarood la yiraahdo laakiin maaha buu yiri faqash daarood maaha buu yiri faqash waa group shaqaysanaya buu waa siyaad bare allah u naxariisto iyo dadkii dawladdiisa ahaa buu yiri groupkaasi ahay ee faqash reer maaha buu yiri marka hadaladiisa waxa kamid ahaa dadka waxa ugu ayaan darnaa buu yiri dadkii rejiimkii ahaa macnaa qabiil kasta isaaqa ku jiray majeerteena ku jiray hawiya ku jiray daarood kala ku jiray raxweyn baa ku jiray ha loo kala badnaado kuwii baa ugu ayaan darnaa buu yiri Nairobi bay wada fadhiyaan iyagoo gaajaysan marka xoolo qabiil lagu xaday xoolo maxaa ku ila xaaraan oo dadka masaakiinta laga dhacay meel lagu ma tago meel lagu ma gaaro baa leenahay farmaajo wixii xaday waxay noqonayaan waa dhuxul naareed ku noqonayaan dadka masaakiinta gaajada la baarkaysan maalin dhaweyto u xulaa dadka masaakiinta ciidsiya waranagu masaakiinta maxaan u haynaa anagu taayadii baan la daala dhacaynaa masaakiinta xoolahoodii ala hayee ma ciidsiiso ala dikadoodii fadhiye ma ciidsiiso ala dawladnimadoodii iyo kharashkooda uu kugu maqan yahay ala madaxweyne u ahay ma adeer ma ciidsiiso ma shiina ciidsiinay shiina ciyaalkiisa haduu ciidsiyo president laakiin dadka ala madaxweyne waa dadka hala ciidsiyo adu ciyaalkaaga un baa ciidsiinaysa yaa adu ciidsiinaysa marka anaga mas'uuliyadii ku saarnayd dadkii masaakiinta lagu doortay ciidsiin weydo yaa ciidsiinaysa marka farmaajo waa fashilmay waa ku dhawaaqeena Jubbaland waxaan leenahay war Axmed Madoobe ku fara adayga Axmed intuu joogo baa Jubbaland jiraysa Axmed intuu joogo wallahi Axmed waligay halow isma oran maalin baa maraasil isku aragnay labada farmaajaan badiya farmaajaan intaan isragnay ee badan tahay Axmed halow isma oran shil ku taageeri miyo dan kale ku taageeri miyo laakiin waxa ii muuqda duulaan in lagu yahay Axmed waxa la diidan yahay ma ahay Jubbaland baa la rabaa in la dumiyo qof magacuyaala la rabaa in maxaa ku raadayay la keeno dan Jubbaland doorashada laga ma laha oo codka loo boobi maye waxa la rabaa in doorashada damo federaalka lagu galo intaas la doonaya reer Puntland reer Jubbaland waxa leeyahay war nin jaranjaro madaxweyne jaranjaro farmaajo u noqda jag u filad Soomaaliya ku sii joogo ya ama difaac u noqdo gaashaan u noqda war ha dooranina nin ininka dantiina ka shaqeeya oo ininka difaac idin noqdo al-shabaab ininka difaaca war ninka doorta in leh ninkaasi waa ayo ninkaasi waa Axmed Islaan hadda haysataan waxa 7 sano inii qabtay orday ha ka abaalka dhicinina abaalka dhicu ma fiicna bisad ha noqonina bisad hilibka markaas indhaha isku qabsata ha ka abaalka dhicinina Axmed Madoobe Axmed Madoobe ka abaalka dhicinina magacyada tan Axmed Dhuxuliyo Axmed Kaniyo waxa la sheegayo waa dad baa dacaayad ka faafinaya lacaga lagu bixinaya social media laga caayaya idaacadii baa laga caayaya waxaas oo dhan waa propaganda way waa propaganda waa wax been iyo dacaayado maxaa ku laga faafinayo idinku ninkaas madaxweynaha yahay war qiimeeya Jubbaland hore iyo hadda isu eega Jubbaland hore iyo hadda isu eega Kismaayo maalintu soo galay maanta isu eega xagee kala joogan waa waxa u dhaxaynaya faraq weyn baa u dhaxaynaya marka saasaan kula talinaya Axmed ku fara adayga Jubbaland Axmed intuu joogo bay jiraysaa Jubbaland inta Axmed joogo bay jiraysaa ha lagu fara adaygo dawladnimadeena ilaashada ninkaas doorasho qabanaya waajib baa ka saarnaa doorashadii waa qabanaya xoog inuu kuma haysanayo u codeeyo codka siiya lacag maxaa ku dhahaa qadar leedahay ha ka raacinina intaas ay leeyahay Axmed hal la taageero hadii Axmed laga guuleysto oo farmaajo karti iyo dadnimo uu leeyahay Axmed ugama adkaan karo lacagta qadar buu uga adkaan karaa hadii Axmed laga adkaado micnaheedu waxa weeye Soomaali waa laga adkaaday dimuqraadiyad waa laga adkaaday doorashooyin dambe oo dhacaya ma jiraan hadee dhacaan waraabe u taag farmaajo ku shubto bay noqon doontaa ninkii aan lahaa maanta maalintii farmaajo la doortay Soomaaliland soo gacan gelinaya si kasta walaalihii hawto madaxa hawsoo salaaxo ha qanciyo waxba wuxuu raba ha u sheego waxaan islahaa mideey Soomaaliland dhan buusaa gacanta isugu soo marin haye ما أنا إسرها لا بس من سوق الجوجين بجبلان أو حافظ سيا قارن تبل سوق استعلاء وركدا قرية هجوبيني ما مساس إسرها مسا أيام دراسة شمالها استوينا أيام دراسة شمالها است شمال لاني يضل كي أردن سوق هنسكت داي ما تجبلان قرية سيا بكيه هجوجينا
wuxuu gubayaa xaaf maalin dhowto wuxuu lahaa laba maamul goboleed buu madaxweynuhu kasoo jeedaa waxay ahayd kaa jubbaland iyo kaa galmudug labadiiba qori dable u sitaa labadiiba isagaa gubaya ka shaqayn lahayn qori dable buu u sitaa qabiil buu ku shaqaynaya wakaa axmed madoobe gada ma tegi karo gada ciidamo u sameeyey farmaajo u sameeyey waa reerkiisii weeye qabiil buu ku kiciyey wuxuu leeyahay kaca gado waa bal eega reer gado maxay jubbaland ku diidan yihiin soo kama tirsama soo xildhibaan kuma le soo kama mid ah soo madaxweyne ku-xigeen kuma le qabiil farmaajo kiciyey kaca haye galmudug wataa madaxweyne ku-xigeenkii farmaajo in maadeernimo kula socda haye axmed in maadeernimo ku socda meeshi qabiil buu ku soo galay waa duminaya puntland waa la ogyahay dadku lacagta siiyo farmaajo waa la ogyahay magac dhamayno dadka madaxda u ah doorashadii madaxweynaha waa ku guuldareystay laakiin labadii kale ku adkaaday farmaajo puntland waxba hadda ku rafarmayno marka reer puntland hala kaco baan leenahay waa ninkii shiina culay ahaa musharaxii shiruu ku reebay dad kale axmed madoobe kenya wadata kenya war kenya farmaajo waa tii usii socday halkaa usii ordayay barood kenya la dagaalan dhahay barood kenya wataa maxaan ku dhahday maalin walba halkaa kugu dhibayse lacagtaadii kaa guranaysa xataa barood kenya la hadla ma la hadli karo axmed madoobe kenya ma waxaa la iskaga celinayaa inuu ciyaadada facebooka kusoo qora kenya la dhaho ma waxaasaa la iskaga celin karaa kenya la iskagama celi karo kenya awoodda dowlad baan nahay anaga dowlad baan nahay waddan oo madax bannaan iyo jirtaan oo adduunyada aqoonsan tahay baan nahay kelmadaan nidhaahno waa qoran tahay taa kenya tiraahdo iyo taayadu waa isku mid wey haye ciidan iyo xoog iyo waxaa waa laga tegay maanta diblomaasiyad ma awoodo marka afka ma kala furi karo waa waxa weeye waxa weeye waa sukeeye ka adag wey sukeeyaha u jeesta marka farmaajo axmed madoobe waxa weeye kenya shalay abay sidii gabar yar oo huluulis lagu kaxayay soto intuu adsababku diyaaradda ku rito adoo maxaan ku dhahdaa aamusan iyo magaciisii abay iyo huro wada hadlaya dhag iyo adoo aamusan sawirada sutaalka la soo dhigay ma waxaa la yidhi gashaanti aamuska lagu meheriyaa waa iska aamusan tahay markaasaa la meherinaya aduu ma gashaanti ba ahayd markii huro iyo abay dushaada saa ugu shaxaya dhag adiguna saa indhaa u taagaysay marka kenya annaga iska dhicinayna adigu nagama dhicin kartid haddaa naga dhicin karto haddaa awoodii haysataa annago aan awood hayn oo mas-uuliyadina saarnayn oo dunida cidi naga maqlayn baa intaa qaylinayna marka mid noo qayliyo annaga naga midaa meeshaa keenaynaa adigu waa gabtay waxaagi waa gabtay mas-uuliyaddaadi waa gabtay farmaajaan la hadlayna waa gabtay reer jubbalanow ninkaa ku far adayga jubballanow war ma jeerteen intuu gartay garta war maamulkiina ayaan layni ka dumin koonfur galbeed meeday shariifku waagii joogay koonfur galbeed taas waxaa la waleynayay siyaasadda soomaaliya koonfur galbeed baa wuxuu ahayd fure ya xiri jirtay furi jirtay maanta meeda koonfur galbeed waare iyo koonfur galbeed saasaa loo sita khalaas waa u dhammaatay saasaa idin leeyahay doorashadaa si joogta ah baan wararkeeda idin kusoo tabinaya ragga musharaxiinta ah oo lacagaa la siiyey oo qadar lacagteeda ku soconaya oo oogada ogaadeenka ka ah laakiin maxaa ku dhahaye muuq ogaadeen leh laakiin maxaa ku dhahdaay maqaarkoodu mareexaan yahay oo madaxweynuhu saa usoo diray oo magacyaalka oo la soo dhaariyay gadaalaan idin kasoo sheegi doona waa ninka shiino culaya musharax shuruu ku reebo idin leh salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu